بسم الله الرحمن الرحيم علفني مودي دو عنواية موية عيدان وهضن وحان دحتاقنا بيرها دقمة قديمة قاية أيل وحا أركيسان ليندانان تكوتا لا أيل إنay liinbanbeelma la eg tahay babaygu intuu la egyahay waa aragtaa saytuunka waa aragtaa bataatadii macaaneed waa aragtaa barwaaqadaas waa barwaaqo ilaahayna ku manaystay inaynu beera falanno oo aynu ku baahi baxno aynu ku barwaaqowno nimcadaas ilaahayna siiyay inaynu ka faa'iideysano dhulkeenna aynu waxaynu cuni lahayn kala soo baxno iyaga ayna ku filan wax leeyno soo oranjo dibadda leeyno kaga keeno iyo saytuun dibadda leeyno kaga keeno iyo babay dibadda leeyno kaga keeno uma maanin dhirteeniyo fareesha oo barwaaqadaas aynu haynaa beeraha aynu ka faa'iideysano dhulkeenna khayraadka ku jira aynu kala soo baxno fursad bay u tahay intaanuna intii samaysay hawshaana waxay samaysay hawl lagu dhiiran karo oo lagu dayan karo meel walba dhulkeenna ka mid ah aynu ku dayanno beerahan maanta barwaaqada ayl ka muuqata waa runtii nimco aad iyo aad u weyn waana shaqo aad iyo aad u sarreysa oo la qabtay ninkii moodi jireen liinanaantu shalaambood iyo ay ka baxda kaliya jannaale maanta waxaan dhex taaganahay ayl waxaa ka baxaysa liintii waxaa ka baxay babaygii waxaa ka baxay saytuunkii waxaa ka baxaya mooskii waxaa ka baxaya barwaaqadii oo dhan waxa laga cunay ayl oo dhan halkaan ayaa laga soo saaraa kadibna iyadaa laga dhoofiyaa oo magaalooyinka kala Garowe iyo Dangaroyo iyo Qardho iyo Boosaaso iyadaa looga iibgeynayaa marka meel walba oo dhulkeenna biyo leh aynu ka faa'iideysano barwaaqada ku jirtana aynu kala soo baxno reer ayl waxaan leenahay waa dadaasheen waxaa tusteen dadka in barwaaqadaanu taariikh bay u leedahay beeraha boqolaal sano ayaa beeraha la falanayay la abuuranayay jiilba jiilbu ka dhaxlayay maanta waxa weeyaan halkaan ay soo gaadhay in wax walba sidaas loo ay u barwaaqaysan yihiin si wadaasna wax walba loo guranayo waad arkaysaan nimcada aan ku dhex jirno adduunka dad haystaa waa ay yar yihiin ilaahay uu noo barakee intii ka shaqaysayna waxaan leenahay ilaahu xoogooda u barakee بسم الله الرحمن الرحيم waxay adiga saas ku soo babac marka okay بسم الله الرحمن الرحيم sidoo shay gudoomiye hore ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay maanta waxaynu dhex joognaa macnaha beerihii degmada ay beer kamid ah waa dareemaysaa maanta in liindanaanta ay ka baxayso mooski baa ka baxaya babaygii baa ka baxaya saytuunkii baa ka baxaya batata macaantii baa ka baxaysa ay nooc maanta waxa weeyaan in waa ka baxayaan sida gudoomiye uu sheegay hadii meelaha qaybtooda la oran jiray dhirtan oo kale macnaha meel hebay ka baxday iyo meel hebay ka baxday iyo koonfur bay ka baxdaa maanta waxaynu dhex taaganahay degmada ayl macnaha beeraheedina waa u jeedaanin aad bay maaragtay qudaar kala duwan baa ku taala waxa weeyaan aynu ka shaqaysano dhulkeena macnaha dhulkeena haddaynu ka shaqaysano waxa weeyaan uma baahnin in banaanka maaragtay wax walba maaragtay aynu u doonano macnaha dhulkeena waxaynu kala soo baxno ayaynu ku baahi beeri karnaa macnaha noloshuna waa intaas macnaha marka waxa weeyaan waxaana kula dardaarmayaa dhammaan macnaha shacabka reer ayl iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland waxa weeyaan dhulkooda inay wax kala soo baxaan haddaynu dhulkeena wax kala soo baxno waxa weeyaan uma baahnin macnaha waxa weeyaan wax banaanka maartay leeno kala keeno maanta inaga hodana inaga qaniya wax walba dhulkeena aynu kala soo baxno aynu shaqaysano inaga isku filnaansho gaarayna inaga tacabkii iyo hantidii aynu soo saarnay bayna ka rabaa inaan wadamada kala maartay aynu geeyno macnaha sidaas oo kale marka waxaan khayr u rajaynayaa waxaan u ducaynaynaa dhammaan intii maartay waxa weeyaan shaqadan qabatay wanaagsan waa shaqo ku dayasho mudan waa shaqo aan soo dhaweynayna macnaha inta kalena waxaan kula dardaarmaynaa shaqadana kale inay qabtaaneen waxaan is leenahay waxa weeyaan qof walba hadduu beer samaysto shaqo la'aanta waa laga baxaya qof walba hadduu beer samaysto noloshiisa dhammaystiran ayuu helayaa macnaha marka inaga isku filan inaga hodana inaga qaniya dhulkeena maanta wax kala soo baxay waad u jeedaan beeraheena iyo qanigeena iyo hodanka maanta aynu ku nahay marka waxa weeyaan baahidu intaas weyn inaan ka gaari karnaa inaga la ka rabaa maanta inaan wax dhoofino aad baan maartay u maasantihiin gudoomiyaha Mudug Tigay aad buu maasan yahay